shaqaaloweynaha madaxtooyada afhayeenkeennii horaan salaamayaa xuseen aadan cige afhayeenka cusub baan soo dhaweynayaa waxaana dhammaantiin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulley halkan waa laga wada hadlay agaasimayaashii hadlay agaasimo waaxidadii hadlayna waan aad baad iyaguna si fiican u hadleen way aragnimada waqtiga dheer ay soo joogeen madaxtooyada oo markii hore ahayd wasaarad imikana madaxtooyadii ah xuseen waxaan leeyahay maalina qofun baa la soo dhaweeyaa maalina qofun baa la sii sabotiyaa xusbiguna waa xusbigaaga xukuumadduna waa xukuumaddaadii afka madaxweynaha qofka ku hadlayana waa afkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweynuhu mucaarad iyo maxaafidba waa madaxweynihiisii oo isagu uu ka gudbay heer madaxweynuhu xusbi ee waa heer dalka somalilan madaxweynihiisii afhayeenkuna isagoo afkaa ka jawaabaya afka madaxweynaha ku hadlaya waa afka qaranka somalilan buu dadka kolley kula hadlayaa xuseen muddaduu halkan joogay iyo muddaduu ka tirsanaa xukuumaddan maanta talad haysa xukuumaddii way isku dhiibeenuun halkii umaynu weli inagu joognaayo dee cid kale inamay soo dhexgelin kolley waxaan leeyahay waa afhayeen si aada u qaaliya usoo shaqeeyey hadday imashada xukuumaddan cusub tahayna halkan adag galay hadday wada shaqaynta xukuumaddii hore tahayna aada iyo aada u shaqeeyo shaqadiisa mar walba u daacad ahaa kartideeda dadaalkeyga lahaa afhayeennimaduna waa digreeto madaxweyne wasiirkuna digreetunbuu kusoo baxaa mar walba dee afka madaxweynaha qofka ku hadlayaana waaba ka wada qaalisi aan u malaynaya dadkaba oo dee isagaaba afkii madaxweynaha ku hadlaya wasaaradda yaree ganacsiguna waaba khatar oo de wasiiradeedu haddana halkan unbay ya markaa waxaan leeyahay maxamuud naalkaas ugu dambeeyey xuseen naalkaa waa kii inooga tegey markaa kolley halkan maanta xilkan laydin magacaabay inaana tirinaya anigu waxaan aaminsanahay xilka ugu sarreeyey qaranka qofka madaxweynaha qaranka ugu sarreeya afkiisa ku hadlaya waxaan malaynayaa meel ka sarreysaaba inaana jirin markaa waxaan leeyahay maxamuud waynu kugu soo dhaweynaynaa xuseenna waxaan leenahay intii aad wasaaradda markay dadku ay wada shaqaynayaan markii hore wasaarad bay noo ahayd laakiin maanta waa madaxtooyadii dhammaantayo sidii wanaagsaneedaynu wada shaqaynay waayo dadku markay soo wada shaqeeyeen dadka kale way iskaga duwan yihiin way ka walaalaysan yihiin way is aqoon gaara isku leeyihiin waxaanu ku leenahay si aad iyo aada u qiimo la-aanu kugu sabooteynaa marnaba maynaan kala tegin dhammaan somaliland oo kala tegayn haddana marnaba maynaan kala tegin inagoo dadku waa iskaga duwannahay madaxtooyada shaqaalaha jooga iyo adiguna dadka kale waa iska xigtaan marka waxaan ku leenahay sabooti fiican maxamuudna waxaan leenahay maxamuud waxaa lagula shaqayn doonaa inaan agaasimihii guud u ahay waaxda saxaafadduna ay tahay waaxaad iyo aada u howlkar ah waa saa uu naasir uga sheekeeyey waa waa habeen iyo dharaarba shaqaysa madaxtooyadu bay kastoo shaqadeedu anu maalintaan xilka tirsanayay waxaan islahaa dee maayarniman ka soo shaqeeyo meel yaro kooban baa timid inkastoo dee madaxtooyadii qaranka tahay dee anu haddana howlaha madaxweynuhu qabta waa u gaar waxaan lahaa inta yare agaasimada xafiisku wax badan noqon mayso laakiin maba lahaba mataqaanaa rawaxaadda ma leh waa madaxtooyadii qaranko waa shaqadeedu siba haddana u ballaaranta marka waxaan leeyahay qolada waaxdaana si fiican baan uga mahad celinayaa si fiican ay u shaqeeyaan afhayeenka cusubna waanu soo dhaweynaynaa shaqooyinkaad qaranka ka soo haysay baanu ognahay halgankaad xusbiga halkan maanta in la soo gaadho soo gashay baanu ognahay marka waxaan leenahay adigana maxamuud waanu ku soo dhaweynaynaa waanu kugu soo dhaweynayaa aada iyo aad baan kuu salaamayaa